nin yaa maalin aroos nagala qayb galay waa nin professor ah oo gaal cadaan Maraykan ah wiil uu dhalay oo muslimiin baa gabar Soomaali ah aroosay marka maalintiiba arooska la isku fahmi waa wuu xanaaqay wuu nala dagaalamay wuu nacay xataa xafada dhexdeedii dadkaan saan waaye dad Afrikaan oo madow oo saan ah wiilkiisiibu wuxuu isku day gabadha inuu diido laakiin wiil gabadhi waa lagu meheriyay markii dambe finally waa process dheer kadib habeenkiiba masaajidka la yiri maalintii inta lagu kaltay habeenkiiba masaajidka la keenay si gabadhi loogu meheriyo ana gabadha ku meheriyay markuu masaajidka soo galay kursi baa gadaal loo dhigay ninka aara turka iyo kibirka iyo xanaaqa ka muuqda wad yaabaysa kursi buu ku fariistay salaada cishaa la gaar salaada cishaa tujiyay salaada markii laga baxay buu asagoo ilmeynaya buu soo kor istaagay kaasoo wuxuu igu yiri waad iga ooysay maxaad igu samaysay saasuu ila hadlayaa markaasaan waxba kuma samayn maxaad akrinaysay markaasaan waxaan akrinayaa quraan hadalkii ilaahay oo quraan markaasuu mikrofonkii la booday dad badan baa masaajidka ku tukanaya markaasuu wuxuu yiri aniga waxaan idin weydiinayaa horta wixii maanta dhawaa idin xanaaqsanaa laakiin markaan wajigiina arkay iyo waxaad akrinayseen iyo saad u nooshihiin buu yiri hadda waan idin jeclaaday wuxuu banaanka markaan soo degayay oo masaajidka soo galayay waxaan arkaa buu yiri maamo maxaadara jirtay masaajidka ka jirtay habeenkaas waxaan arkayaa buu yiri maamo van wadata muddo banaanka taagnaa buu yiri 5 ama 4 cunug bay wadaa way kala cararayaan way qoslayaan way ciyaarayaan ayadu wixii waa qoslaysaa masaajidkay soo galayaan waxaan arkaa buu nin iyo naag baabuur ka soo wada dagay oo ciyaal tiro badan daadinaya masaajidkay soo galayaan mid kasta waa qoslaya hadda wajigiina dhanbigooda waa qoslaysaa aniga wixii kaniisada aan tago saan u dhannahay nimanka single fathers baan nahay naagahana waa single mothers qof la hadla kuma jiro mid kasta waa xanaaqsan yahay marka aniga waxa idin weydiinayaa sirta noloshaad fahanteena waxa habiga idin ka dhigay ayna idin lacag haysanin oo qaxooti tihiin waxaas ku dhaganaada buu yiri waxaad ku nooshihiin saacado run ah ba ku nooshiin annaga lacag haysano buu yiri qof la hadla kaniisadeeda kuma jiro qof faraxsan ma arka buu wajigiis mid kasta buu waxaan aqoon dhinac u jeeda fiiri waa basiid qofkaas waa saciid soma